halkan waxaan u imaaday adiga darta markaan labadeen weji ka weji u kulan ogow waa marka kugu daysa filimka xal lagu tarjumo studio Farmbridge Mogadishu halkan waxaan u imaaday adiga darta halo yawal yaa ila hadlaya markaan weji ka weji u kulan yaa ila hadlaya halo xusuusna waa marka kugu dambaysay dunida ما لا يعني وكان لسه in caanka ah magaalada Jannaa lagu magacaabo Salim Raxmaan ayaa la leeyahay ilaa shalay wax warbixin laga ma hayo ay bisay dacwad la dhigi keenay in wiilkiisa la leeyahay ilaa hadda meel oo jiro lama ogo soo dhawo baadari soo dhawo fadhiiso bal maxaa dhacna baadari ii sheeg meesha marka amaan isku jaago wuu fiicnaa laakiin hadda isbedel ayaan kaaga jeedaa maxaa qaldan ii sheeg baadari bal waxa weeyay FT هل حبسي حتى بناك من لو عبكركم تفضل تالي wadada Kutubaan ayaa gaari keenay gaari lacag ma saaran may meed ayaa ku jiro waa ogaab tuuladana ku dhahay nacsiin la isugu imaado waa kana meeda yaal kana yaal nolosheedan meed ma ku dhamaysaa fiiri ana hadda waxaan joogaa meesha oo maxaa la meed lagu dhaqa kiisa raba hadda inaan meesha geeyo adigana waxaan ka rabaa mataqaanaa kuwii wax barbaaray faraha iyo kuwaas ina geeska bacdi waan iimaanaa كسلام تلي ولا قاضي تلي انا سلام وسكر اي بالجيجي فاهم حيورا محبرت انا سمسين تلي وقتها شغل اني اركتها مو وسعبت منها اكفر سنه حوجا جكسيسي ما يمسك بدني غير تكيل دعك سوسي سلي تلي وقتها ماشي انا شغال اكتها مانو اذا جاك الكسيل دمل اكفر سنه يعني شغال عبتان الان يا شقي كرا واي اساس ليس كده ابو ماشي ما بلغ شقيه يا رقم عادي معايا يجيتك له او ساعه ما بابا كجرايا هلو ها مدنه waxa ka rabaa marwo batra marwada halkaas ay joogtaa taliye inta ma sha Allah kala ka socoto sigda kala laakin tii aan raadinay مرو شرحنا ها مايكل وحير معنا يسان راشين كان مقاي جيب هدي عنكر فيري تمن بري هذا سو صعد حتى راشي انا عنكر مليها shaqadaada haddii ay sidaa noqoto waa la qabsanaysaa dhib malaan 12 maalin ugu horeysa ayaa dhibaato ka arkaysaa 12 maalin shay 10 daqiiqo xataa meeshaan ma joogi kara aniga kiiskan arintiis ilaa iyo hadda waan baaraynaa miya okay hey maxaa dhac biimo socdaa miya mar waqti loo jiri moogid miya xiligan biimo wala helabo homero
dadkii noolaa ayaa biyaha ku dhiban dadka dhinta marka biyisay ku helayaan soo ma saxni Michael waa saxan tahay la iska dheh ana waxaan rabaa laakiin kiiskan siduu dhaqso Uriya meeshaas ma aha laba marxabad ka loo baahan yahay waa kiis kala soo maaha haa Marwo 8 kiis ayaa xal inooga baahan ilaa iyo haddana waxaan ka qabano ma lahan waa la socdaa maho saas darteed marka waxaan ka rabaa adi laftirka inaan raacdo ka bacdina baaritaan aan la sameysano kiiska ku guuleysrina soo saxnin baaritaan ma kula sameynaa oo hadda sababtaas halkaan u timid soo maaha waay intee waay badbari duurka la dhahay waano hal mar aan wax walba xalin lahaano meesha mar haddii i raaci lahayd ay diyaar ma tahay waayahay kiiskaana xalinaya kadib aan ku imaanaa waayahay Marwo waayahay Michael gabadhan kiiskeeda maxaad ka dhahdaa adiga horta gabadhan kiiskeeda ilaa iyo hadda waa la laayay sababtoo ah markii hore waxaa la saaxiibkeeda aaboobe laakiin wax yar ka bacdi waxaa bal arkay iyadoo meed kiiskan waa inaad si wanaagsan u baartaa sababta wuxuu quseeyaa qodobka 376 maxaa ula jeedaa malkubsadi ka bacdina maldili haa hey gabadhan dhaawacyo badan ayaa hoos uga yaallo hoos ah haa waxaan ka wadaa kufsi xun ayaa loo geystay qoftaan kuwa hadda jir laakiin sheeka jecel camal la isku quusa ka bacdina waxaa arkayba iiko oo maxaa la qaybta hoos u dhaadhacaayo waxyaabo badan hoos sorry waxaa loo baahan yahay marka hore baaritaan DNA inaad ku samayso wixii kaaga soo baxo ayaa la rabaa inaad ku dhaqaaqdo dadka dambiga geystana ay ciqaabto ma fahamtano Marwo hadda meedkan anaga ma iska xareynaynaa meeqa sano ayaa jirta adiga 25 sano 5 sano ayay kaa yareed qoftaan sidaadoo kalena rajooyin weyn lahayd markaan kiiskan baaritaan ku sameynay kadib ayaan reerkeeda u celinaynaa meedkeeda waxaadna ogaataa inay kaa qurux badneed waad ifaanta soo maa waayahay Marwo xarey meedka hay Michael waan soconaynaa ina marihe ay saas hawshan marle aan soo dhameeyay dadkan waxa way magta hadii kale Michael telefonkaaga ka soo tag sii socaya Marwo telefonkaaga waa kan waaya maasanid waa ku salaam Marwo taliye subax wanaagsan Amir qofka ugu horeeyo arko booliska soo wargeliyaa waa naaga fara badan arkeen ayaga noo soo sheegeen idinkana waa idin soo sheegay hay gaari warbixintiisa ma wargeliseen qolada waxa baarta waan u dirnay gaariga warbixintiisa idil ayaga xilligan baaritaan ku sameeyay okay wadadaan oo kaliya laga soo galaa haa wuxuu ku hareersan tahay duurka hay gaariga ma soo yaalaa ana mar سام حاولنا هيا دي meelaha asbaar صح Michael ها waa qodobka 302 qofka meel kale ayaa lagu soo dilay kadib waa meedkiisa halka la keenay laguna gubay maruu saa ku dhigi kartaa hadalkaas feerbal dhibanaha inuu baxsado xataa iskuma dayin ilaa hadda suunku wuu xiran yahay wiliba xibnihiisa meelo qaar oo jaban ayaa jiro waad aragtaan soo maahan dhammaantiin Marwo sana loo baasaday DNA ma laga qaadi karaa meedka waxaan la samayn karin ma jiraan xataa lafiis haddii aan isku dayno dhuux ayaan ka helaynaa gaariga heelkurkiisa markaan fiiriyey waxay u eg tahay 5 saac ilaa iyo 6 saac ka hor in uu ka damay gubitaankana
batrool ayaa loo isticmaalay marwo ma xumo laakiin anaga warbixinta sideen ku helaynaa mar qofka rag ayuu ahaa dhirirkiisana wuxuu gaarayay 5 fiid iyo 8 inji daadiisana waxaan ku qiyaasay 33 jir ilaa 35 jir waa intaas marwo batroolaa gacanta ku dhigna waxaana ogaan in batrool loo isticmaalo maxaa kale fare xitaa gacanta ku henaaba warbixinta kale hadhow ayaan ku siinayaa marka hore waxaan ku qasbannahay meydkiinaan qaadno haye xarunta ayaa la geynayaa beriya soo baxay warbixinta shalay ayaa meydka la helay haddana halkan waxaan u taagnaa warbixinta inaan helno fiiriye booliska imaada kaalaya taliye warbixin ayaan u baahannahay halkan warbixina sii taliye mudana meydka la hela saliim raxmaan meydkiisa miyaa noo sheeg warbixin sax anaga gacanta kuma hen idinkan iska jira war dhan inaad gudbisaan taliye waan ku baryaynaa warbixin ayaan u baahannahay taliye sidaana nooga tegin waan ku baryaynaa taliye nala hadal horu soo dhaaf taliye haa gudaha waa soo dhawow fishaal wandhawe soo dhawow riboodka ugu dambeey mahaysaan wax yar ayaa inoo dhiman wayihiin maxaa soo baxay michael ayaan u sheegay haana ii sheegtay sax waa waa qodobka 302 inta aan la dilin ka horna si xun ayaa loo dhibaateeyey sideed qayb ayaa lafihiisa ka burbursan haddii aan qiyaasay waxaan dhihi karaa bir ama wax culus ayaa loo isticmaalay dilkiisa wixii kuu soo baxay waad ii sheegtay muxmed laakiin niina eeg markii aad qaateen kadib talaabta xigtoo la qaadaya maxaa waaye runta haddii aan ka hadlo hal waddo ayaa noo furan jirkiisa iskuma dheelitirno meydkan waxaa loo baahan yahay si maskaxiyan inaan iskuugu dheelitirno tan kale fishaal faraha midig markii aan fiirinay way go'an yihiin waa la jaray waa arrinaa hore loo arag marow waa isleeyihiin waa asiga naftirkiisa fiishaal qofkan waa saliim raxmaan ii daabaca halo adiga waxyaabahaas anaha iga sheekeenin oo meesha joogtay artalii u keediya maha fiir doorta taliya maxaan sameeynaa saliim wuxuu yeelaan hadda arrinteena way noo dhammaatay meydkana waan celinaynaa laakiinse waa ku bari hal mar wararka fiirso maxaa dhacay wararka fiirsan hal mar remote ma haysiin ushada noo yaaqay hal mar qasada bal fadri wuxuu caddeeyey intuu xabsiga ku jiray inuu dilaayo ninka lagu magacaabo doctor saliim cabdiraxmaan laakiin waxaa laga hayaa codad caddeena codadkaasna waxaa laga soo baahiyey tiktok-ga uu leeyahay ninka lagu magacaabo jajandaraa haddana gabadha waa la soo baahinaya codadkaas caddeyntaa ee lagu soo diray tiktok-ka jajandaraa muuqaalka saliim cabdiraxmaanna gabadha mekel maxaa dhacay akhbaartan saxaafadda yaa siiyey ii sheeg inta karaamkayga waa dadaalama waan waa u diiday meelay ka keeneen maxaan ka sheegi karaa kiiskan wuxuu u egyahay mid madax xanuun wato saliim raxmaan aabihiisa waa baadiriga la sheegaya waa nookan fiiri سليم 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 سليم
معقول ما إيجاركي سليم سليم xabsiga nin ku sugnaa ayaa wuxuu ballan qaaday saliim cabdiraxmaan inuu dilaayo ilaa haddana warbixin ma ka haysin كيس warkaas كان كيس علوس وهو كبريا واجب كينا قدرنا فرحنا يا غالي طلي صح بعبوا علي تيك توك فيديو قصدي أو قال كرمدو انت ماو صصع انت اللي حبسك تلافين إلا لو استعمالك إنه وقتها ما حطوا سماسي وسقط تلي رالا وكتوبة رالا ورتلي ninkan qaraabo ma leeyahay dad soo booqaa xitaa ma aragti muu malaynaya inta ninkan qaraabo inuu leeyahay qof soo booqata ma jirta miya haa hal badariga jir mar walba uu soo booqan jiray badarigaas kaliya ninka inuu soo booqdo xabsiga muu umaa jirin badarigaas maxaabiista dhanna inuu u duceeyo uu umaa jiray badarigaas sidaas ayuun kula kulmay fitri markii ugu dambayso meeshan soo booqdo waxay ahayd badariga mararka qaarkood qofka bini'aadamka ah dembi wuu galaa dembigaasna waa uu ka soo laabtaa balse ninkan maanta indhihiisa wax igala muuqda wax aadaya ma ahayn wuxuuna igu yidhi qof baan doonayaa kow inan ka siiyo ka warran hadda intuu joogaa maxaa dhacay see wax u jiraan ninkan yaa saa u baasada waa la soo weerara miya qofkan doctor saliim sooma aan ku weydiiyey sababta meeshan aa ugu sawirta maxaa waaye taas adiga shaqadaada soo ogow riya yaa awood ku sii noocaas inaad ola hadashaan tali ninkan michael baadariga warbixintiisa barisfam waxaa farta ka saartaa michael okay waa fahamta sooma waayaa tali sabax ninkan iyo kiiskan xiriir ka dhexeeya muxuu yahay taasaan rabaa inaan ogaado aniga xabsiga waxaan u aaday si aan u soo qanciyo laakiin dhaqankiisa waa nooc kale inuu wax ii sheegana way ii suurtageli weyse taliya iyaarkayga qofka dila waa in la ii sheegaa haddaysan ahayn sooma aniga raadsanaya iska daaya
naaga heesiisii balaaya la sheegayay naagtaas oo tuma Titores Batra ayaa la laaga. Titoresa Batra. Gabadhaas waa gabar fiican. Kiisas badan ayaa loo dhiibay. Kiiskaasina ku soo guulaysatay. Kiiska loo dhiibana gacan ayaa loogu taagayaa. Hay Fishal, anaa wargelina qoftaas. Hadda ka sii baxday, idil sii shaqeeyay. Okay? waya taliye U kaada Fishal hal mar. waan la socdaa qoftaas waxay jeceshahay kiisaska inay idin kaliya u soo koobto laakiin adiga waxaa laga baahan inaad garab siiso kiiskan kaliya kiisas kale waxaa jira idin kaliya u soo koobtay xitaa dadka qaraabadooda inay xalisay isku daydaa marka ka feejignow gabadhaas ayaan ku dhihi lahaa ishaadana waa inaad si fiican u furnaataa okay waya taliye amarkaaga jir hey diyaa waxay u egtaa maamulkaaga inuu kugu adkeynayo soo maaha intaas diya adiga kuga tala gasho warkaa kaa bataya adiga waayahay maclimadaadu waxay ii sheegtay boolis inaad naqato inaad rabtid rumiyaane hooy sababta waxaa loo burcadana in xabad ku dhufto waaw aniga xataa ma la socotaa markii aan yaraa sidaadoo kale ayaan jeclaa boolisna haa weliba arrimo badan ayaan ka aqriyay baaritaanaan ku sameeyey buugaagta xataa waan ka aqrin jiray laakiin awoobahaaga fiiluu mar walba wuxuu ku dadaali jiray aniga ditoor in uu iga dhigo laakiin aniga aad ayaan u aqli badnaa waxaana ogaa anigoo titoora booliska inaan la shaqayn karo sidaas darteed ayaan u galay awoobahaana wuu guulaystay hooyadaana way guulaysatay haa mahadsanid marwo gabadhayda geesiyadda ahayd badra haa waa ka qaaday gabadhaada miya haa waa gabadhayda diyaa waagu salaamad diyaa ninkayga dubay ayuu ka shaqeeyaa beella waay gaashaanlaha kiiskan ayaa isoo sababta aad kiiskan igu soo darta maxay tahay fishaal aniga aadaan ugu faraxsanaa ardaydayda inaan baro meydadka sida loo baaro taliyaha ciidanka igu soo amray badraa adi arrinkan waa xali kartaa waa haddii aad garab isiiso dabcan waayahay sidaasaan ku rajeynaa soo dhowow kooxdayda mahadsanid laysku leeyahay wariya maskaxdaada dib u soo celiya saxkamey runta haddii aan sheego buuqa wuu sii badanaya haye ma xasuustaa qofkan yama jawaabtidoo xaa kugu dhacay su-aasha ka jawaab waa rifa lekan hadal wariya labadiina maxaa idinka dhexeeya hadal labadayna waxba nagama dhexeeyo haddii aan dilkiisa raba mar hore ayaan dili lahaa taliya tartiiba kugu dhiman haddii kale ninka ha dhintee faraha qaat anaa warka keenaya waan la socdaa ninkaas inaadan dilin waa kuma cidda adiga garabku siinaysay la hadla wariya nasiibkayga soo kuguma ciyaar anjalna yeehe ما غنوا ما غني ما كيس أغانوا مني ما غنوا war doqonkan hal erey luu ku soo celcelina maanta oo dhan injaliyay tahay bal fiiri calaamadan markii aad weydiisay saalim raxmaan wuu xanaaqay weliba inuu ku dilo ayuu isku dayay
laakiin angel markii aad weydiisay wuu aamusay si kale ayuu noola dhaqmay waa inaan ogaanaa angel cidda ay tahay kiiska warbixin kale ayaa ku soo korortay waqti xaadirkaana mudana feedii kiniisadda ayaa loo kaxaynayaa ahayna keenay way imaadeen ameer meesha inay imaanayna saxaafadda u sheegay baadir waa ku salaamay waan kaa qaaday magacayga fishaal waay waan la Waxaan rabaa in socdaa wax badan ku weydiiyo waan fahansanahay kan kaxay waxaa geysa qabuurta waayo fidii taliya adigu iga raaliya ma noo sheegi kartaa fidri arrimihiisa fatri wax walba oo ku saabsan haddii aad rabto inaad ogaato ugu horre angel arrimaheedu waa inaad ogaataa 25 sano ka hor angel waxay ahayd mid aad u yar nolosheena ayayna ku soo biirtay magaca angelna qofkuu bixiyey aniga ayuu ahaa angel angel wax yar ayay weynaatay kiniisadda ayayna ku kortay dhibka iyo rafaadkani annaga mar walba waan la qiibsan jirnay gabadhaydii halkan maxaad la taagan tahayne anaga ciyaalka ay iskuulkalana waxay dhanaa nashna malid aaba xitaa maliday dhahankaas aaboodana nasho bixi naanas maliimay ane yaa ku dhahay naanis ma lihid yaase ku dhahay adiga aabba ma lihid si fiican halkan u fiiri aabbaha waa kaa jesus hadda laga bilaabo angel jesus ayaa lagu dhahaa gabadhaydii okay mahayno haye kan miisiinis miya maxaa u haysataan animakashina baabahayasiya mar walba waan ducaystaa laakiin ducadeeda maba la aqbalaayo hadda saaxiibadday maariya ayaa la guursanayaa anigana waxaan ku qasbanaya beesgilkan xunkaa inaan ku wareego codsi sidaas u sii weyn ma wataa aniga codsi yar oo keliya ayaan wataa waxaan u baahanahay wiilka mustaqbalka aan isguursanabna laabta anigoo ku haayo baasgilkan inaan ku soo wada wareegno codsigayga intaasoo keliya waaye degdegna iguma furno waan sugi karaa nasiibkayga ayaan sugayaa ya ay ceebaan dhexda ka taaganahay ciil badana mudana maxaa kuu darnaa odaga ma aabadhiisi ma ha dabcan iskulaatadan asiga ma u keentay adiga dhibaato miyaad ku qabtaa fatri halkan maxaad ka qabanaysaa shaqadaada ma soo dhammaysata haa baadiri baadiri kiniisadda haddii aan tagno oon soo ducaysano ducadayna mala aqbalaane of course laakiin maxaad ii weydiisay maya caadile waa iska kaa weydiiyey mar kale ayaan kulmay gabadhayda maxaad u murugsan tahay waxba ma jiraan baadiri haye baadiri waa kasii tegayaa உன்னாலே என் வாழ்க்கை உண்டானதே வண்ணமாய் தனியாயிருந்த நானே என்னையே baadiri hooyaday maxay iiga tagtay adiga baadiri ow kaale fatri haye soo hadal baadiri run ahaantii aniga gabar ayaan jeclaa ayadana sidoo kale way jeceshahay balse ma aqaano qaabkan jecelkayga ugu sheega lahaa ma aqaan qaabkan jecelka ugu sheega lahaa maad idhahdeen waxa weyn maa waalidiinteed u tag way kusoo siinayaan saas miya aniga run ahaantii gabadhaada waa jecla sidoo kale ayadana way jeceshahay haddii ay mar ii ogolaa lahayd ballan waay anigani
waan ka taxadiri lahaa weliba si fiican aan ugu taxadiri lahaa run ahaantii mar la tixgeli jacaylkan kuu qabo aniga ma aqaan hooyadada qaabka ay ku dhimatay balse waxaan kuu ballan qaadaa nafta inta ay ku jirto inaan ku cidlaynin oo marnaba aan kaa fogaan oo gabadhaydii ahaa baadiri wiilkan arrinta ku soo bandhigta maka aqbashayne maxaa dhahday si fiican kuuma maqlo waayaha anigaa u sheegaayo aabbahey arrinta ugu oggolaaday wuxuuna dhahay goordha waad isguursanaysaan labadiina gabadhayda dhibkaa kaa batay விரலோடு விரல் கோர்த்து விளையாடுதே நெஞ்சமே இதழினில் இதழ் பதிக்க இரவிழிமை துடிக்க இரவிலும் நான் விழுந்து இருந்தேன் உயிரினில் உலை கொதிக்க உடலினில் அலையடிக்க பகலிலும் நான் உறங்க மறந்தேன் உனக்காக நானே உயிர் வாழுவேனே மனத்தோளிலே தாங்குவே உன் கூந்தல் கேட்கும் சிறு பூவுக்காக ஒரு தோட்டத்தை வாங்குவே அருகே இருந்தால் அது போதும் எனக்கு தருவேன் தருவேன் ஒரு ஜீவன் உனக்கு இருந்தாலும் இறந்தாலும் பிரியாமல் இருப்பேன் மிஞ்சுமே விரலோடு விரல் கோர்த்து விளையாடுதே நெஞ்சமே labadiina maxay taa sababta jannay aad u aadaysaan fatriye runtii aniga meeshaan lacag fara badan kama shaqaysan maadaama anigana nolol aan samaystay beri ka maalin carruur aan yeelanaya waxaa isleeyahay carruurtaada nolol fiican ha ku noolaadaan nolosheeda marka hore cidla ayaan ku soo qaatay laakiin inta hadda ka harsan sikin walba waxaan rabaa gabadhaada inaan la qaato waa markaas markii igu dambaysay aan arkay wiilkan baadari isbitaalkee ayuu ahaa isbitaalka aad geyseen injal j c hosbitaal amiir taliye fitri gaariga saar waaya taliye soo soco wariyaa soo soco ayaa ku dhahay soo soco inaan ducaystaan war waxaas ma jiraan soo soco ku dhahay nasida waxaan ku dhahay inaan ducaystaan rabaa amiir inuu ducaysto ayuu rabaa u fasaxa ducaystee socoyaakh dadka dhibaatadan ii geystay adigu waad cafi kartaa balse aniga inta nolosheeda ka dhiman ma cafinaayo gabadhaada runtii nolol qurux badan ayay isiisay si xad dhaafana waa ii jecleed dadka xaaskayga iga dilay waa inaad dhintaan fitri hore waxyaabaan u soo sameeyey iyo hadda waxaan samayn rabo intaba waa la socdaa wuuna ogyahay maxaa waaye midkaan si wanaagsan u daboolay hey wariyaa ka leexda meesha ka banaanaya idin dhahay ka leexda ka leexda ka leexda taliye kaalada mar meeshaan fiiribo taargetkayga ayaan beegsanaa wakhtiga ugaarsigana waa la taagaa hadda ayaan kugu soo wajahana waa kugu soo wajahana
markaan labadeena weji ka weji u wada kulanno waa marka kugu dambaysay noloshaada taasna xusuusno tani maxaa loola jeedaa raadkii qaabiilna qaabiil sidiisaba wuxuu ahaa nin waa dilaagii ugu horreeyey ee adduunka qaabiil walaalkiisna wuxuu u dilay damac dumareed dartii dunidana dil walba oo markaas kadib ka dhacay asaga ayaa lagu aaneeyaa ilaahay ayaana sidaas ku habaaray sheekadaasna waa sheeko caan ah laakiinse kiiskaan ka shaqaynayno iyo arrintaas maxaa iska quseeya talow ma fahanteen idinka aniga ma fahmin tali waa loo soo dhameeyey warbixinta caafimaad oo dhammaystiran waa tanaa xafiiskii taliya warbixin ayaan u baahannahay warbixintoo dhammaystiran waa inaad na siisaa taliya fiidii arrintan asigaa ka dambeeyey nolosha ayaa muhiima waxayna noqon ayaan u baahannahay waan ku baryaa waxa jira noo sheeg fiidii arrintaa maadigaa sameeyey hadal waan ku baryaa wax noo sheeg inaan wax maqalno ayaan rabnaa waan nii baryaa inaan naga hadlo taliye warbixin ma idiin sii karo hay ciidamadaadii aaweydii jiraan mid ha ku fikirin in anaga naga baxsato aad badbaado lagama yaa midas inay dhacdo aniga hadal kuguma daalino hore ayaan kugu sheegay taargetkayga labaad qofka uu yahay bali celi haddii aad celi karto maxaad ula jeedaa michael anjel maray dhimatay 4 sano kadib aan ku dhahay saliim waxa uu ka shaqaynayay jesi hospital waxaasoo dhan riboodka anjel ayuu qoreen fiiribal waa kaasi haye badraa waxaan xawaayn fiiri qofka saxiixay saliim raxmaan kadibna michael sidee ku dhimatay angel shilay ku dhimatay sababta dhimashada jug madax ka soo gaartay qof dumar ah weliba uur leh ayaa madaxa dhaawac ka soo gaaray yaa waayo qofka ugu horeeya ee baaritaanku samaynayo isbitaalka markii la geeyey kadib ma ditoor qallin oo keliya shaqo ku leh mise ditoor dhanka wadnaha ku takhasusay dhimashada angel wax aanan ogeyn ayaa ku hoos duugan laakiinse riboodyadan aan hayno anaga warbixintoo saxa kuma ogaan karno badri arrinkan mar labaad inaan ka sar gaarno annaga ma awoodnaan haa waan awoodnaa maya marwo sorry runaantii danan hadda kiiskan diiwaan ugu laabanayna waad la socotiin ma waxyaabaha aan kala kulmi doono lafaji jaban iyo waxyaabaha noocaas oo keliya maxaa kale kusoo kordhaya marka sorry sir taas waa macquul michael waxaa jiro kiisas aad u fara badan oo lafaha lagu xalliyey haalak sidee marwo 1920kii
nin caafimaad ku takhasusay oo Sydney Smith la dhaho ayaa 3 laf ka helay ceel dhexdiisa kadibna waxaa la ogaaday gabar curyaana inay lahayd lafahaas oo weliba ay u dhimatay xabad lagu dhufto darteed waxay ogaadeen gabadhaas aabaheed in uu dilay darteed caddeynta haba yaraatee haddii aan helno waxaa laga yaabaa wax badan inay naga caawiso igaraal noqya waxaan u baahanahay laf yar anjal ay leedahay kadibna taariikhdeeda oo dhan ayaan soo saarayaa vidri iyo anji labadooda mid ka mida qaraabadooda in aan helno waan ku qasbannaha lacala haddii ay dhacday in aan weynana waxaan ku qasbannaha qabriga in aan qodno si caddeeman aan meeshaas uga helno laakiin ma u malaynaha qaraabo inay leeyihiin way leeyihiin marka la fiiriyo qodobka 176 CRC waxaa la ogolaaday kiiska inji dib in loo furo meedkeedana mar labaad ayaa baaritaan lagu sameynayaa inji hey waryaa kaalin nool ma taaday sidaan oo dhan maxaad iga fiirinaysaan waryaawe waxaa hoy ciyaalkan maxaa ka khaldanya meeshaan meel ka fiicanay bahel karaan baadil meeshaad igu sugyaa hey 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 warkaalay yaaq idinka maxaa idinka khaldan yaaq meelahaas kan raadsada noo socda yaaqay hey waxaan dhahay yaaq وايه مركب محالك خلطة مركب والسعد ورياضة هاي سعد ورياضة سعد جامية سعد يا بدري مايكل عمرو بادرك سيدو يهي حالديس حالات رايدة معها أنت عادة سميسة موقات amar waxaan ku bixiyay CC kamerada in la soo baaro ايه النقطة لي baadiriga ma u malaynahay meeshaan in aan ku hay karnaa naga tan kale amarkii aan dhiibnay waxaan ku qasbannahay in aan bedelno laakiin waxaa ogaataa tala farahayna inay ka baxday اقرا النقيق انا درتي وحول بكون عمرو يا هاي waan samaynaynaa fishaal biro qoraxda markay soo baxdo iftiinka ugu horeeyana uu dhulka ku dhaco waxaan awoodaa meedkaas mar labaad inaan baaritaan ku sameeyo taasna xaq ayaan u leeyahay That's really good biri subax garsooraha maxkamadda intuusan soo bixin shaqadiisana uusan soo gelin ayaan hawshan ka dhammaanaynaa baadiriga wax dhibaato horseeda mar labaad inaan sii samayna maahan Michael fishaal arrintaas ka hor waa inaan mid ka taxadirnaa fishaal waa aragtaa soo maahan
aniga hore ayaan kuugu sheegay waxaan ku dhaaway imaanayaan waa inaad angel meydkeeda ilaalisaa waa dhowahay ما عاد هو صدق صحيح حاجة غير الله என்னடி வலி உனக்கு என்னடி வலி உனக்கு பூவாசம் புழுதியாகி போச்சு அணில் புதைச்ச வித மரமாகி போச்சு தோழி சத்தம் கொலுசாக மாறி போச்சு பாவம் பார்த்த மண்ணும் உனக்காத்து போச்சு உனக்கு போக விருப்பம் இல்லையோ இல்ல விட சொல்ல தவம் இருந்தாயோ என்னடி வலி உனக்கு என்னடி வலி உனக்கு inji meedkeeda wuxuu duugan yahay muddo 4 sana saasoo ay tahayna meedkeeda ilaa hadda ma uusan isbedelin wuxuu isku bedeli waayay ayaan la ka yaabanaa soo weegtay sababtoo jirkeeda isku bedelay maxay tahayna runaantii wax naga qarsanaa jira mayna meediina banaanka ay taagan yihiin amiir arrintan waa arrin iska caadiya sababtoo ah dadka qaar naxash bulukeeti ka samaysan ayaa lagu duugaa naxashkaasna wuxuu diidayaa inay qoraxda u gudubto kadibna jirkooda wuxuu dhalayaa maado sida shumaci oo kale ama saabuunka dadka noocaasna jirkooda ma dhammaado arrintaasoo kale adibar ayaa la lahaa waa wax la yaqaano fisha arrintan labadeen waa inay nagu koobnaata sirtaa ma rabo inayna dhaafto maxaa ka wadaan baaritaankan angel ku sameeyey
waa baaritaankii ugu horreeyay lagu sameeyey. maxay dhahday arrin ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in jal jirkeeda inuu ka man yahay wadnaheeda. waan ka xumaa riboodka hore loo soo saaray arrintaas kuma aysan xusneen. taas waxaaba sii dheer anaga JC riboodyada aan ka helna arrimahaas kuma xusno fishaal. kiiskan waxyaabo halis ah ayaa ku hoos duugan. taasna maahan midaan malaysan karno. marwo meyd dib muu askarna maya amiir meydka ilaa iyo hadda baaritaan ayaa noogu dhiman. waxaa loo baahan yahay isla hadda inaan xarunteena u qaado meydka. waaya marwo amarkaagaa jiro anaga warar rabnaa hey saxmadda iga yarayaan indhahay ka leexda meesha bannaaya ka bannaaya meesha gees u baxa gees hadalkan wax micnaa kuma fadhiyo riboodkaana mid dhammaystiran ma Mar aha. meesha mar dhow ayaan kusoo biiray feelashaana waa feelashii hore. laakiin waxaa u baahnaa madax meesha inaan la kulmo dhib ma laha ciwaankiisa ayaan ku siinaa. aniga waan kuu soo socdaa hadalka uguma daalinayo waan kuu soo socdaa hore ayaan kugu sheegay taargetkayga labaad markaan face to face u kulna labadeena wixii aan sameyn iyo wax hadda kadib aan samayn rabo intaba waa uu la socdaa taargetkayga ayaan beegsanaya wax walbana waan ku shaqay wakhtigii ugaarsiga ayaa la taagan yahay marka kugu dambaysa ayay naqanaysaa xusuusno marka kugu dambaysa fishaal maxaa ku helan qiyaas yaa waayo qofka xiga uu fitrii dili karo. yuu yaa marka raadkayga ayaa ka hadasha soo maahan raadkii qaabiil. qaabiil yaa dilan walaalkiisa yar magaciisa waxaa waaye haabiil. soo dhawow fishaal magacayga sidee ku soo aqoonsatay iyo adreyskayga waxaa kula socota qofka ugu caalamisan xagga dambaarista magaceedana waxaa la yidhaahdaa tictoreso badra soo dhawow masanid mudane ma fadhiisan karnaa haa soo fadhiista mudane waxay iila muuqataa akhriskina aad u xiisayso. wax akhriska waan jeclahay. kaartada tuugada buuggan akhriskiisu markaan ka dhammaano kadib maskaxdeena sida tuugadii u shaqaynaysa sooma saxni mudane xaraara ahaasi sigaar iila soo orod yaa haytanne haye alaabtan waa cabaysaan oo maleeya kafee ama shaax kay cabaysaan maya mudane mudane haddaan khaldanen meeshaan keliga ayaa kusoo soomaa oo degan aniga familkeyga australia degan yihiin marka indii imaada meeshan imaadaa waana ogtihin meeshan shaqo fara badan ay taal raalli ahaadaya okay raaxada qaado mudane warka daaha aan kaaga qaado muhiimaddana aan kuu sheego 4 sano ka hor isbitaalkaaga gabar ayaa camalid lagu sameeyey gabadhaasna meydkeedii ayaan dib u baarnay markii aan baaritaan ku samaynana waxaa noo caddaatay isbitaalkaagaba in lagu dilay arrintaas inaa warbixin kaa weydiinaa halkaan oo imaano mudane bas iga dhah
arrinkan oo dhan meeshuu ku biishuwaa si fiican oo la socdaa doctor saliim raxmaan waana la socdaa inuu aad ugu takhasusay wadna qalista anagana xubnaha maba iibinaba gaar ahaan wadnaha ilaa yaraantiisaan naqaanaay hal laakiin su-aashaas ayada annaga maba ku weydiin ka war laakiin see ku qiyaasta adiga waan ku fahmay si fiicanuu kula socdaa wax yar ka hor isbitaalkayga soo kama imaan idin laakiin fishaal annaga isbitaalka ma aanan weydiin xubno laga ganacsado alloora saa haddee tahay beri 10 saldhigga booliiska noogu imaad amnigaagana annaga ayaa sugayno kadibna waan shooreynayna michael haa tali saldhigga ayaad wacaysaa 4 ciidamo ayaan u baahanaa in la soo diro ninkanna in la waardiyeyo si ammaankiisa ay u sugaan gurigaa maal waxiraane aniga adiga leh anagu ekaa taarantaan hallo control room miya maqashaana waa aid station mudane taleefankayga ayaan iloobay aad ayaad u fikiraysaa isdejiyaan ku dhihi lahaa fishaal wuxuu noo sheegay keligiis inuu degan yahay soo maaha guriga maya waxaan dareema qof kale inuu michael war gudaha sidee ku soo galeen namari walaala kumaariya qabta tuuga iyo isbaxsanin kumaar istaagura waan idin baryaynaa wax noo sheeg muhiimay noo tahay waa idin baryaynaa warbixin ayaan u baahan nahay arrintan booliska ma soo faragashteen mar meedka markaan baarna kadib ayaan warbixin idin siinaynaa adigoo noo jawaabin hanaga tegin waan ku baryaa arrintan booliska wax ma qabanaya noo jawaab waa idin baryaynaa saxaafadda warbixinta qaldan xaggee ka keentaa tiiba dulqaadka hala badiyaa dadkan cadaadis ayayna saarayaan miidkan baarista akuhays iga soo gabagabay may fishaal aniga ma baaraayo maadaama goobtaas kula joogo dhib inuu ka yimaadaa laga yaaba sidaas darteed qof ila shaqeeya hawshaa qabanayo batraha lacalla ha kol welin anaa korka la soconayo fitriya dilkan wax ayuu ka ogaa taasna waxay caddaynaysaa qof inuu bannaankuu joogo maya marwe xafiiskayga ayaa shaqa ii taalla iska taxadirhay macsalaam waayahay baay tali naga sare maxaa dhacay goormuu yimid haddana loo imaada kii kale wax ma ka soo ogaateen ii sheeg maya kaas laakiin hanjabaadii waxyaaba noocaas laswata moogaya ilaa iyo hadda laakiin ana waa ka shaksanahay waxaan ku dhihi lahay kaas fasax isii meeshas cagta dhiga anaa cagta la dhigi lahay warbixinna kaaga keeni lahay hagaag nasiibkaaga tijaabi thank you sir taliya maxay tahay saan fishaal wariyaa ilaa hagta wax kaama haya aniga guri wasiirka ayaan tegey marmarsiyo been ayaan soo aqriyey waana ka soo laabtay shaqada ina qof kale ku bedel ma harta adiga may taliye hawshana meel fiican ayay ii maraysaa run ahaanta weyna ii dhowda saliim iyo habiil hal qofood ayaa dila run ahaanti
baadarigina intaan isleeyihiin arrinta lug ayuu ku leeyahay asiga ayaaba kow laga siiyaba sheekadiiaba lagu daray kiiskana wax yar ayaa nooga dhiman qabashadiisa qabri ma soo qodino idinka haa maxaa warbixinoo hesheen marka ii sheeg warbixinta ay naftikeeda wax yar nooga dhiman caawa maqribkii ayay soo baxaysaa waxbaha ka bagnaaday tali fasax haddii aan noo siiyees fatriya rabnaa mar labaad in aan waraysanna haddii ay macquul tahay kan bini aadam maaha tali meklow maxaa dhacoo soo bax warkasaa garaaca gacantaay xanuunta yaaqe war ma laga soo saari kara yaaqe roybati masiyaa waryuuyaa ninka ka hadle naga soo xir baktiga ayoyo seewa yaaqay halisaa naga soo gaarayseeda ninkan waa la xiraa diiradda booliska sharaf dhac u imaanaya naga dhaaf yaaq marka ninka xog kasoo meesh xalo soo seexda umaleeya nuucaas miya halis diyaaraya argoo socdan barkaas inuu sameeyo mehel inay taleefonka u dansada xal dhanna waa isluugay asluugu kale nin xal isla seexda makina waxa ay ma salaamniyo waa kaas mar walba saan isla seexdaas kan ila taxbiis kala saar ku macay hayniyo ka sii goohaya asluugin han isla seexan alaabtiga wada alaabtiya sheekara u diri sheekara soo goda alaabta baa hadis waxa qalda laakiin kadabka loo soo gooyaa ku dhahay male waa maqarsiiba asagadaha hawtali diyaaranahay diyaari suxmuga baruudana qaxiyooya see ku samayn kartaa fadri adiga ayaa kaxaystay baaritaanna waad ku soo samaysay waayey hadda shantan kalood u baahan tahay waa maxay saliim raxmaan iyo habiil hal qofood ayaa dilay hal fara ayaana laga helay midkoodana waa isku mid qofka dish hal caddeyn la leeyihiin anaga warbixin cad ayaan haynaa ninkan xaaskiisa markii aan baaritaan ku samayno meedkeeda waxa ay noo caddaatay isbitaalka j c inuu arrin halisa faraha kula jiro caddaymahoo saxan weliba dhammaystiran feelkan ayay ku xusan yihiin maxaad ula jeedaa badraa takhaatiirta miyaa dembigan ka dambaysay haa marwo maxkamaddu waxay oggolaanaysaa muddo 2 maalina fadrii booliska in lagu wareejiyo maadaama loo baahan yahay kiiska in la soo caddeeyo waad mahadsan tahay marwo garsooraha sharafta leh haddii aad ii oggolaanayso su'aalo ma weydiin karaa fitri haa waad weydiin kartaa safarkaaga halkaa miyuu ku egyahay mise waa sii soconaysaa arrintan social media iyo dadka kale ma la socdaan qaadiga miyaad rabtaa inaad hor dhacdo anjel qofkii wadnaheeda la baxay isla qofkaas ayaa aniga taargetkayga labaad ah mani runta inaad sheegto wax kaaga ron male meeshaana arkaysid waa xabsi xataa ma laga yaabo racfaan in aad qaadato mana kuu oggolaahayo ilaa aad runta ka sheegtana sidaan oo keliya ayaa lagu garaaca sheeg runta baaritaan saa'ida ayaa liigu sameeyey saa'id ayaanan u daalanaa hadda waxaan rabaa inaan iska baxno umul saxaafadeed ayaan iska aadaynaa adiga nolosheeda ayaa tahay kanay dhalanayn waa nolosheeda
maadaamaad adiga ubadii dhalaysa aad ayaan ugu faraxsanaa ubadkeena markoo noo dhalanaya waxaan rabaa noloshaan nolol ka gedisan inuu ku dhasho oo farxad ku barbaaro adigana wejigaaga farxad bay ka muuqato oo aan haysano lacag wax walba aan ku iibsan karno maxaa dhacana way isoo darbaysanoo waxay leedahay aabbahay ha dhibina dhibka ka daa waxay ku haraantinaysaa adiga ku dhowsaa isdeji காற்றிலே என் தனிமை சுமந்தவனே பாலையின் கள்ளினான் பல வண்ண பூவானே மழை கண்ட மயிலை போலே உனை கண்டேனே கடலாழம் காதல் செய்வோம் வா மழை கண்ட மயிலை போலே உனை கண்டேனே கடலாழம் காதல் செய்வோம் வா injal wadnaha ayaa laga saaray taasna hadda ayaan ogaanay taasi waa run laakiin taas isbitaalka ma taalo adigase sidee ku ogaatay fitrii baadariga ma kuu sheegay agoontan ayaa mas-uuliyaddooda qaadaya yaase damaanadka ee baadari ilaahaygi keenay adduunyadan ayaa damaanadooda leh adigana garab ku siinaayo dacooyinkaaga sidan ayaa lagu aqbalay ha cabsanin adigoo xabsiga ku jiro misna far aada dhaqaajin ayaa wax walba lagu qabanay taliya xabsiga u tag si aan warbixin u soo ogaado indhihiisa si fiican ayaan u fiirshay wuxuuna igu dhahay qof ayaan rabaa inaan dilo hadda la wariyaa kan doctor saliim raxmaan sooma kan kale maxaad meeshaan ugu sawiratan indhihiisa markaan fiirshan wax walba ayaa igala muuqday taas adiga shaqadaada taamaad raadisid inaan adiga dilin waan ogaa laakiin cidda bannaan kuu joogta garab ku siiyaysa yay tahay ii sheeg inta aanan la dilin ka hor si xun ayaa loo dhibaateeyey
nasiibka meel kale ayaa lagu soo dilay kadib ayaa meydka halkaan la keenay laguna gubay taargetkayga ayaan bartilmaamaysanaya horena waan kugu sheegay war waaba nooc kale ninkaan qofka xiga ayaan rabaa inaan dilo inta dhimanna sidaad rabta ayay u dhacayaan waqtiga ugarsiga ayaa la taagay injel meydkeeda markii aan baaritaanka ku celinaynay baadariga xataa wuxuu ku jiray isbitaalka hadday sidaas tahay qofaan baadariga ahayn oo arrintan ka caawiya ayaa jiro dilaagana waa isla qofkaas waa qof aan naga fogeyn oo annaga nagu dhex jira fitri ayuuna u shaqeeyaa ahaba cuntada waan kuu diyaariyey cuntada markii aad cunto kadibna meedadkaada ku soo cayaar gabadheed aad mar walba sidaa maxaa ugu dhaqantaana aabo hooyo markii ay naga tagto kadib adiga ayaan ku haysanay adiga haddii aanan kaa fikirin yaa kaloon ka fikiraya darta ayaan u shaqaynayaa inaad nasato ayaa wanaagsan iinase marka anigana waan kuu soo shaqaynayaa waxay weydiinaysaa gabadheeda shaqada inaan ka dahday in kale adi shaqada ma ka dahay miya waayahay aabba hadalkaaga waan fahmay haddana waan dahay waan sii baxayaa macsalaamaya bay bay oo macaanta waan ku iloobayaaqay maalin wanaagsan برياد maxaa ku daaray meeqa jeer aan ku soo wacay telefoonka maxay qaways seelanta ayuu iga saarnaa wicitaankaagana ma aanan arag igaarkii iskoolkiisa la iga soo wacay maanta oo dhan waxa u maleeyaa in asxanuusay waa la gacan galay hal ixsaam ii suubi kartaana ii sheeg caawa qolka qalinkan ku qornaa shaqadii ma qaban kartaa walaashay waa ku tuuga waayahe yuuyaa dhakhtarka ku qoran qalinka gabadheed ila hadal maxaa kugu dhacan isoo fiiri bal gabadheed maxaa la ooynaysaa ii sheeg maxaa kugu dhacay beriyaa dadka faqiiriinta dadka taajiriinta noloshooda qiimo lama laha miyaa maxaa dhacaaba maxaa ujeeda hadalkaada kalkaalisada ayaa i codsatay anigana booskeeda ayaan beddelay qolkana waxaa shaqo ku lahaa doctor saliim bukaanka markaas warbixintiisa aniga waxba maanan ka ogeyn laakiin doctorka indhihiisa markii aan arkay waan ogaaday bartaas wax qaldan inay ka dhici rabaan gabadha xaaladdeeda aaday u wanaagsaneed waana badbaadin karnay balse intuu badbaadin lahaa dhakhtarka qaliinka ayuuba ku degdegay aabba uur ayay laheyd canugana wuu ka soo saaray balse canuga waa uu dhinsanaa ilmaha wakhtigooda ka hor dhashaan annaga ayaa noola dhiibaa waa maxay dhibaatadaas ka socota meesha maxaan samaynaynaa aabbo tan anjel oo keliya kuma aysan dhicin
gabdhaha kalena waa ay ku dhacday anjel iyo gabdhaha kaleba cadaalad ayay u baahan yihiin maxaa dhahday dhimasho kale ali mar runta afkiisa haddii aan ka soo saarna waxaad ogaataan sheekada in ay gebagaba weyso laakiin macquul ma noqotaa inaan ka soo saarno cali oo keliya maaha 3 kale oo arrintan og ayaa jirto midka koowaad waa fitri kan labaadna waa dilaaga kan saddexaadna waa midka xigay dhiman doona 26 Julaay 2017 waa maalintay shilka gashay Angel isla maalintaasna way dhimatay wadnaha aad iyo aad ayuu qaas u yahay qof markii laga soo saarayna asagoo nool in laga soo saaraa loo baahan yahay qofka markii wadnaha loo gelinayna 4 saac gudahood waa inuu meesha ku yimaadaa waliba isla maalintaas 26 Julaay qalliinkan soo maahan isbitaalka GC ayaa lagu sameeyey ama isbitaal kale laakiin haa diiwaangelinta ayaa naga maqan oo keliya hadday sidaas tahay bulshada ayaan wargelinaynaa ilaan dhaqaatiirtii ka howlgalaya wadnaha maalintaas la soo saaray waa hadafka xiga ee dilaaga uu beegsanayo qalliin wadnaha lagu bedelayo lana qalaayo hal maalin ma lagu sameyn karo yaa xiga marka 26 Julaay 2017 gabadhii la dilaayay magaceedana lagu magacaabay Inji booliska kiiskeeda dib ayay u fureen habeenkaas dhaqaatiirta qaliinka sameeyeen waxaa laga codsanayaa booliska inay u yimaadaan wax walbana ay cadeeyaan tali sababta la bedelayo maxaa waa inay sheeg maadaama kiiska aad gudan weysay oo laga wareejiyey kiiskan CD ayaa loo wareegtay anaga maaha iska bax wiilkaygii waxba ma qaban kartide i dhegayso hal arrin ayaan doonayaa inaan kuu sheego taasoo ah gabadhii la dili jiray aniga inaan dilo horta magaceedii muxuu ahaay Angel haa anigaa wadnaha kala baxay waxaana ka baxshay 2 milyan oo koror hadda qaali ayuu noqday wiilkayga ayaa dhammaystiray markan aniga wadnaha kala baxay hadda waxaan odhan adaa ka dambayso ma caddaynta keliyaad haystaa waxay tahay maniine mar haddii maxkamadda aad geyso afkiisa ma kala furaayo kii waalayn wuxuu raadinayaa qofka wadnaha la baxay ninkaasna wuxuu dili karayaa qofka wadnaha wakhtiga gacanta ku hayo anigana wadna hadda gacanta kuma hayo sheeko bella soo maaha waa saxan tahay lacagta iyaga way ka hadalsiin kartaa laakiin waxaad ogaataa fitri qofka xiga oo dilaayo adiga ma garan kartaana ii sheeg aniga ma sheegi kari laakiin waxaan dareensanahay adiga inaad tahay taargetka kale arrintan hadda dhankeena way ka dhammaatay meydka meeshiisa waa inaad ku celisaa waya marow hore ayaan kuugu sheegay fishaal waxaan ku dhahay shaqadan nooma oggolaanayaan sistamkeenna ayaaba noocaan ah haddana waxaan dareemayaa maadaama kiiska uu qabyo noqday dil kale inuu dhacaayo waan hubaa taas maya badraa anjeliya wadnaheeda qofkii qaatay ma laga yaabo in uu veetar dilo ma ogtaha adiga vetri inuu doonayo runtoo idin bannaanka inuu soo saaro saasoo ay tahay vetri iyo dilaaga keebaan baaritaan ku samaynaa laakiin waxaad ogaataa dilaag kasta wax lagu tixraaco ayuu leeyahay qof walibana dhimashada waa ay sugaysaa ogow qofka xiga ee dhiman doona yaad ku qiyaasi lahayd
goordhow waan kuu soo socdaa labadeennani markaan face to face u kulanno waa markay dunida kugu dambaysa taasna xusuusino adiga waayo soo maahane midka wiilkayga dilay oo ku barya wixii dhacwaay dhacin iska keesiidaa lacag badan ayaan ku siinayaa oo aad ku raaxaysato oo ku barya iska keedaa miyaadan ahayn wax garad adeerow in wax la cafiyo ama la ciqaabo taasoo anaga awood naga saraysa ilaahu kaliya wax ciqaabi kara ma cafin kara meedadka annaga noola keenaayo waa dad si aan caadi ahaynin u dhinteen arrintaanna sharciga ayay qusaysaa waa difaanteen soo maahan qof walbana duruuf u qaasa ayuu u dhintay tusaale ahaan meedkan waxaa noola keenay asagoo 3 maalin biyaha ku dhex jiro maqaarka meedkaani wax dhaawac ma uusan gaarin waad aragtaan waxaad ka soo qaadaan dembiilaha haddii uu farihiisa saaro xuubkan hadhow si qaldan in loo isticmaali karo taas waxaaba sii dheer xuubkan haddii aan faarmooliin ku dhex ridno muddo badan ayuu oolayaa sidaas darteed kiisaska nuucaana si taxadir leh waa inaad uga shaqaysaan ardaydayda waa difaanteen soo maahan waxaan idin siinayaa feelalkii hore ee kiisaska quseeyey si fiican uga soo shaqeeyay kaali ii soo qaba kiisaskii hore H5 gubniin BD midkaan itusi bal gabadhan waxay kiiskan adiga miyaa ka shaqaynayana waad bixi kartaan socaadiina raac walaal kaali aniga gabadhan aqoon ayaan u leeyahay wax yar kadib ayaan soo bixi rabaa fidriye haddana waxaan taaganahay meesha basaska adigoo raaliya taleefoonka ma damin kartaanaya waxay dharasan hey mawaalanta adiga gabaryahay maxaa kaa qaldanne meel aamina ma istaagi kartid iga raali noqodaada ma aqaano ee meel fiican waa inaad ku hadashaa hadda kadib is ilaali iga raali noqo hay adiga oo ma baskaad ila soo raacday macaanta hoojukeed
beela waay wax yar dhadhamino aniga shukulaato ma cuno siita adiga xaggeed ka soo jeedaa oo haddii ay sidaas tahay anigaa kaa hormaraayo mulmaali ayaan deganahay walaashay angal ayaa lay dhahaa aniga ma uu ku weydiininba waan iskaa baray adigana magacaaga ii sheegno badraa badraa waayahay si fiican aan isku barano haye angal ayaa lay dhahaa fedbaari ayaana ka soo jeedaa dhaqsaa soo degatay baahi maa ku haysan abbaay walaal kafe ii keen waayahay abbaay adima kuu dalbaa may waan dharganay mar walba sidaa miyaa u faraxsan tahay sidaanna ma u daldalantaa haa laakiin mid ma qiyaasi kartaana noloshaan aniga meel fog ayay iga keentay weliba safar aanan farxad hayn safarkaasna muddo 22 sanaa ayaan ku jiray kadib noloshayda waxaa ku soo biiray fedri waana noloshayda aadaan ugu faraxsanaa haddana gabadhayda ayaa nagu soo biiri rabto aad ayaana u faraxsanahay fedri boos walba ayuu ii buuxiyey kan hooyo kan aabbo meel walba wuu ii buuxiyey farxad ayuuna i siiyey ma rabtaa garaaca wadnaha canugaaga inaad maqasho sidee laakiin adiga ma rabtaa haami samee waan rabaa abbaay haa hay ma maqashaa waan maqlaa hay canugaaga muxuu kuu sheegayaa saas hadday tahay tigtoraysataan u malaynaa haa maxaa dhacma dareemin waan ku fahmi waaye ka waran dhib ma lahan way dhacdaa abbaay beri fidri dhalashadiisa waaye waxaan u hadiyeeyey ayaana la ahay adiga dhalashadaada muxuu hadiyad ahaan kuu siiyey beella waaye laakiin qaybtan kale maxay ebar u tahay sabab ayaa ka dambayso maxaa waaye booskan bannaan gabadheyda sawirkeeda ayaa loo baneeyey fitri aaway wuu imaanayaa keena culayska kaa qaaday ma ogaan kartaan adiga naga waqtaa midaas ii sheeg waan kaaba kaa laabta ku geliyey باي 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 isoo wacayaahe waxaad ii sheegta ma haysaa
goortii aan ogaaday inay nooshahay gurigayga ayaan u soo watay haddii aanan soo wadi lahaynna saacaddan ma noolaan lahayn khibradda dhakhtarnimo aan leeyahay ayaanan ku badbaadiyey canugtaan yar cunugtan yar meeshaan ayay ammaan ku helaysaa xal anjelo keliya kuma aysan dhicin gabdhahoo dhan ayay ku dhaceen gabdhahaasna cadaalad ayay u baahan yihiin iyo xaqooda in loo soo dhiciyo arrinta sidaa u malaysid uma fududo baadari caddayn la'aanna annaga waxba ma caddayn karno laakiin adiga waxaad awooddaa caddaynta inaad noo keento beriyaa aniga laakiin sidee marwo isbitaalka warbixin walba way ku keedsan tahay waxaana u baahanahay caddayn inaad meeshaas iiga soo qaaddo inta kale anigaa xalinaayo arrintan arrin weyn waaye marwo warbixintoo koobanna waxaa laga helayaa saliim cabdiraxmaan kombiyuutarkiisa halista waa inaad u bareertaa beriyaa hooyadan dulmiga loo dilo waa inaad u hiilisaa canugtan yarna cadaalad u soo dhicisaa dembiilayaasha falkan ka dambeeyo waa inaan sharciga la tiigsanaa annaga wax walba gacantaada ayay ku jiraan marwo gabadheed arrintan maxaa u soo gelinaysaa mustaqbalkeed ma ka fikir marwo ha ka cabsan caddeynta waan kuu keenayaa dhibaatadan oo dhan waxay ka soo gaartay qaybta shaybaarka way gashay aashta fara badanaa ku daadatay boqolkiiba 80 jirkeeda waa u gubtay sidii lagu badbaadi lahaana way adag tahay arrinkan bal ka waran booliiska adigoo raali hal daqiiqana sii waayahay marow yaray soo bax maxaa dhacay beriyaa ii sheeg maxaa dhacay shil ma uusan ahayn soo maaha adiga
waxba kuma gaarayaan waad caafimaadaysaa waxba kuma gaarayaan anigaa huba taas mar waan ku salaamay sidee tahay waan fiicanahay adiga sidee tahay waan fiicanahay buugaagtaad aad u xiisaysaa soo maaha ilaa yaraantayda ayaan jeclaa inaan aqriyo buugaagta waa arrin wanaagsan buugaa ma akhrisatay maya hadda leen bilaabo akhriskiisa waayahay qofka alifay aqoon ma u leedahay adiga maya buuggaan ninka qoray jan dominig ayaa la dhahaa baralees ayuuna noqday isagoo dhan waa arrin lala yaabo laakiin siduu ku alifay buuggaan shoog maskaxda ka soo gaaray ayuu cudurkan ugu dhacay hal il oo keliya ayuuna dhaqaajin karay isaga kalkaalisada markaas la joogtay ayaa ka caawisa buuggan inuu qoro sideehe mar walba sabuuradda ayay xaraf ku qori jirtay asagana isha ayuu uga baaqi jiray si ay u dareen inuu xarafkaasi afka u rabo waxay rukaadi بريا cuntada waan kuu diyaariyey haddii aad cuntana meedadka la soo cayaar adiga ayaa ka dambaysay adiga ayaa ku kalifay arrintan in ay samayso adigaa ku kalifay waa adiga adigaa ka dambeeya gabadhaas maskiinta waa
dishay gabadhaas maskiinta ayaa dishay dadkoo dhan waxay igu eedaynayaan inaan isdilay laakiin adiga waa inaad soo caddaysaa in lay dilay horta dadkii dilay aawe ma nool yihiin mase way dhinteen aniga cudurka calooshu ma aanan dhimanin ee 8 nin ayaa ay kufsatay adigana taas waa ogaatay dadkaas ciqaab u marsiisay sheeg dadka waxay dhaheen shil gaari ayay ku dhimatay laakiin aniga ilaa aan ka dhinto waa lii garaacay adigana waad ogeed dadka sidaas igu sameeyey ma la enqaabay mase way raaxaysanayaan adiga ayaan ku weydiinayaa ii jawaab noo jawaab dhaqso noo jawaab jawaabna sii jawaab nala hadal noo jawaab maa hadashid marwo iyo marwo waxaa kugu dhacay iyo marwo gabadhaydii dambiilayaasha annaga ma ciqaabi karno ciqaab walbana xagga allah ayay ka socotaa dambiilayaasha nasiibka ayaa u doorta dad ciqaabtooda marsiiyo taasna qalad ma ahan baadari laakiin dadka arrintaas samaynayo waa inuu marka hore nasiibka doortaa arrinta injalna annaga ayaa noola doortay waa inaan waajibkeena gudana hal mid ayaan rabaa inaad iga caawiso taasoo ah warbixintan ku siinayo fikri inaad u geyso agoonta yaa caawinaya yaase garab siinaya baadiri laakiin xaqiiqda ah arrintan inaan annaga ka dambayno fikri waa inaad ka qarisaa allahii abuurtay ayaa aga garab siinaya adigana garabku siinaya ha baqin baadiri kiniisaddan diyaan imaanu ducisano ducadayna ma la aqbalaane of course ducadaada waxay u eg tahay adigoo waxba sameyn in la aqbalaayo weliba adigoo xabsiga ku jiro farna aadan dhaqaajinin ayaa walba lagu qabanaya war waan la socdaa inaan adiga dili karin ninka yaa garab ku siinaayo oo bannaan kuu joogo wax walba dhiman waa la dhammaystiri doonaa inta aanan la dilin ka hor si xun ayaa loo silciyey sidaa maxay igu samaynaysaa waxalaala waxay rabta sheego oo ku siinaa aniga waxba ma rabo laakiin ninkan ma aragtaa asagaa sharaxad dheeri ku siinaayo shiibaarkayga soo galaysa kombiyuutarkayga faraysa waxaa rabtaa cadaaladda inay badbaadays wadnaheeda 2 milyan oo keliya ayuu ii goynayay laakiin ballan waxaan ku qaaday waa iibina katiif waxba ii mataraya aniga iska fasax waa lagu guuray yaray meesha ka dhaqaaji waa laga shaqeeyay soddon iyo 5 sano si kartila ay uga shaqaynayeen meedadka aniga intaan noolaa meedad badan waan soo baaray waana soo raacdiyey laakiin maanta wax ma iga dhigtay inaan gabadheeda meedkeeda gacanteeda ku baaro 4 sano la soo dhaafay mar walba oo meed loo keeno wuxuu soo xasuusanayay gabadhiisa meedkeedu wuuna iska ooynayay ilaa iyo haddana cadaalad ayuu sugayaa inuu helana waa u qalmaa jirkiisa qayb ka mida 8 laf ka burbursan adduunkan aan ku noolnahay waxaad noqonaysaa qofka ugu horeeyey oo asagoo nool sidii meed loola dhaqmay meel kale ayaa lagu soo dilay bensiin waa inaa isticmaashaa gaarigana aad hoodka ku gubtaa kadibna halkan ayaa la keenay meydka waana la gubay taleefankayga ayaan ilooway
taliya shaal wuxuu noo sheegay keligiis inuu degan yahay soo maaha waxaan dareemay qof kale ah meedkan maqaarkiisa wax dhaawac ma uusan soo gaarin dambiilaha fariis haddii ay gaareenna wax qaldan ayaa loo isticmaali karaa batroolka meel goobta u dhowaa inaad dhigtaa weliba fara aad ku reebtaa dilkiisa shidaala loo isticmaalo farana gacanta oo ku haynaa booliska qofka farahaan la ayay dabagalayaan saliim raxmaan iyo habiil hal qofood ayaa dilay faraha meesha ka helana waa isla hal fara oo keliya anigaa kaa hubo walwalka arrinta faraha haddii aan ka hadalnana annagoo keliya ayaa og inaysan lahayn waxaan anjel oo keliya kuma aysan dhicin gabdhaha oo dhan waa ay ku dhaceen waxayna u baahan yihiin cadaalad iyo xaqooda in loo soo dhiciyo fatri wuxuu rabaa runta inuu sheego oo weliba afkiisa kala furo wax walbana uu ka hadlo waxay ahaataba dilaaga maan dabagelaynaa mase fatri ila dilaag kasta caddayn ayuu leeyahay noloshaan meel fog ayay iga keentay safar aan farxad lahaynna waan soo qaatay muddo 22 sano ah cidlo ayaan ku noolaa nafteydana waan la sheekaysan jiray laakiin ugu dambeyntii fadri ayaa nolosheeda ku soo marka hore nolosheeda kelinimo ayaan ku dhammaystay inta nolosheeda ka dhiman waxaan rabaa gabadhaada inaan la qaato மழை கண்ட மயிலை போலே உனை கண்டேனே கடலாழம் காதல் செய்வோம் வா taliye waxaan rabaa fitri si gooniya inaanu la hadlo fitri qof walbood rabta inuu ciqaab maro ciqaabtiisa waa uu maray weliba nasiibkaa kaa saacida middaas waa maalmo kooban oo keliya isku day argudsigaan inaad iska ilowdo kadibna aad bannaanka u soo baxdo nasiibkayga ayaa wax walba iga fogeeyay runaant شوكولاتة أو شو لك ما أنا كنت لك maya iska hees yariisee hadiyad kale ayay kuu haysaa maxaa waayana qaybtan bannaan sabab ayaa ka maxay tahay booskaas bannaan waxaa loo baneeyay gabadhayda sawirkeeda ma fahantayne
maxaa dhacayna weli ma bilaabina miya ixtiraamkan oo dhan ma waxaad u muujinaysaan meed meed ah kuma fahmin marow aniga idin sharaxaya arrintan meedadka waxay faa'iido u yihiin ardayda sababtoo waxaa loo baahan yahay dhanka caafimaadka in wax badan lagu ogeysiiyo sidaas darteed meedadka qaar xarumaha ayaa laga soo diraa si dhanka caafimaadka ay uga ogaadaan ardayda taas ayaana meedad lagu tilmaamaa mararka qaarna qofka asagoo nool ayuu faa'iido laabay noqonayaa asagoo dhintayna waa lagu faa'iidaa waa intaas sheekada runteedana inaad dhamiseen ayaan rajaynayaa haddana shaqadiina waa inaad gashaan ma ahan meedka intaan ka badan inaad waqti siisaan waa maalinta idinkuugu horeysa shaqo bilaaba waayahay marwo daawadayaal warda degaan indhihiina saliim raxmaan mar hore la dilay adoogiisana 2 beri la laayahay booliiskana waxay u jihaysteen bihaar si ay u soo ogaadaan qofka dilkan ka dambeeya baaritaano fara badan oo la sameeyey waa la ogaabayay qofka dilay saliim raxmaan laakiin rajadooda waxay tahay inuu ku sugan yahay dilaaga meesha la yidhahdo bihaar filimkana waxaa lagu tarjumay studio Farm Lodge Mogadishu